kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 10 qodob oo ku tusaya inaad leedahay shakhsiyad xooggan. Qofku inuu lahaado shakhsiyad xooggan ma aha u dhalasho balse waa doorasho iyo xirfad uu qofku baran karo. Noloshuna waxay isugu jirtaa farxad, murugo, dhib iyo dheef. Dadka shakhsiyadda adag u saaxiibka ah waxay wax ka bartaan dhibaatooyinkii soo maray, iyagoo sidoo kale fahansan in caqabad kasta oo soo marta ay ka bixi doonaan. Haddaba waxaan halkan kugula wadaagi doonaa 10 calaamadood oo aad ku garan karto qofka ay shakhsiyaddiisu xooggan tahay. Number 1, lama adeegsan karo. Ma aha dad la adeegsado isla markaana si qaldan looga faa'iideysto wanaagooda. Waana dad soo jeeda oo kala saara dadka daacadda ah iyo kuwa raba inay si qaldan u adeegsadaan. Haddaba waxaan uga jeedaa lama adeegsan karo waa dad go'aankooda ku socda iyo qorshayaashooda. Number 2, waxay yaqaanaan sida loo adeegsado kelmadda maya, wayna u fududahay inay maya yidhaahdaan waxyaabaha ayna awoodin halkii ay naftooda ku dhibi lahaayeen. Mararka qaar ayay lagama maarmaan tahay inaad maya tidhaahdo mar kasta oo aad aragto inaanad awood u lahayn waxa lagaa dalbanayo. Maya ku dheh oo ha kelifin naftaada oo ha ku qasbin wax awooddeeda ka baxsan. Dadka shakhsiyadda adag leh dabeecadahooda waxaa ka mid ah inay qofka si cad wax ugu sheegaan oo ma aha dadka hadalka la kabada, waxayna qofka u sheegaan hadduu qaldan yahay iyo hadduu saxan yahayba. Number 3, waxay ka fiirsadaan hadallada ay ku hadlayaan, waxayna og yihiin inay waxa ay ku hadlayaan ku soo laaban karaan mararka qaar. Sidaa awgeed aad ayay isagu hubiyaan waxyaabaha ay ku hadlayaan inta ayna afkooda ka soo bixin. Number 4, si degdeg ah ayay ula qabsadaan marxaladaha nolosha ee soo wajaha, waxayna xal u raadiyaan caqabadahooda intii ay ku mashquuli lahaayeen wax tegay. Waxay taa beddelkeeda xal u raadiyaan caqabadaha nolosha ee taagan, waxayna og yihiin inay waxaasi tageen oo aanay soo noqon doonin. Sideedaba ma fiicna inuu qofku waqti iskaga lumiyo wixii la soo dhaafay. Number 5, ma qiimeeyaan waxay dadku ka aaminsan yihiin. Waa dad u taagan noloshooda, marnaba waqti kuma bixiyaan waxay dadku ka aaminsan yihiin, waxayna u arkaan wax caadiya inay dadka qaarkood ka soo horjeedsadaan fikirkooda, sababtoo ah dadku isku wada aragti maaha. Waxayna dadka ula dhaqmaan si xushmad iyo qadarin leh, balse uma noola inay dadka raalli geliyaan. Number 6, waxay leeyihiin dulqaad ay ku sugaan guushooda. Guushu ma timaada hal mar, waxay og yihiin inay u baahan tahay waqti, dulqaad iyo samir, waxayna sii wadaan dadaalka ay ku hiigsanayaan meesha ay u socdaan. Number 7, waxay horumariyaan naftooda. Inaad naftaada horumariso dhaqaale ahaan, muuqaal ahaan, dareen ahaan iyo maskax ahaanba ma aha wax fudud oo si fudud lagu gaari karo. Dadka shakhsiyadda xooggani waxay og yihiin inaanay jirin wax nolosha fududi. Hadaf kasta oo aad naftaada rabto inaad gaadhaa wuxuu u baahan yahay inaad si adag u shaqayso. Inaad damacdo inaad naftaada horumariso waa calaamad ku tusaysa inaad tahay qof shakhsiyaddiisu xooggan tahay. Number 8, waxaad qirataa daciifnimadaada. Dadka shakhsiyadda xooggani waxay og yihiin inay mararka qaar guuldarraysan karaan, balse daciifnimadoodaasi kama joojiso inay iskuday sameeyaan. Qofka shakhsi ahaan xooggani wuxuu isku dayaa habab kala duwan oo uu waxa ugu guulaysan karo, waxayna og yihiin inay noloshu leedahay kor u kac siday u leedahay hoos u dhac. Number 9, waxay ku fiican yihiin inay maareeyaan guuldarrooyinkooda. Qofka shakhsi ahaan u xooggan, guuldarradu ma aha waxaad u dhibta. Qofkaasi guuldarrada uma arko halkii u dambaysay ee uu ku quusan lahaa, balse wuxuu u arkaa inuu sii horumarayo oo uu isbeddelayo. Qofka shakhsi ahaan u xooggani wuxuu fahamsan yahay in guuldarradu ay tahay waxa kuu tilmaamaya inaad guulaysato oo aad gaadho hadafkaaga. Number 10, kama warwartid waxyaabaha awooddaada ka baxsan. Dadka shakhsiyadda xooggani badanaa kama warwaraan waxyaabaha aanay qaban karin. Dadka qaar ayaa jecel inay wax kasta xalliyaan, balse waxyaabaha qaar ayaa awooddeenna ka baxsan oo ay xallintoodu adag tahay. Haddaba dadka shakhsi ahaan xooggani waxay dadaal ku bixiyaan waxyaabaha ay wax ka qaban karaan, horumarin karaan, isla markaana ay guul ka gaadhi karaan.